السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada casharkeeni labaad iyo family planning. bilowgii kooraska waxaanu ka soo hadalnay hordhicii casharkeena ka soo tilmaanay family planning waxa uu yahay faa'iidada ku jirta iyo sidoo kale waxyaabaha loo isticmaali karo. waxaan soo tilmaanay family planning inuu noocyo yahay noocyo kala duwan loo isticmaalo guud ahaan. family planning waxa loo qaybiyaa labada nooc loo qabiyo family planning waa mid dabiici iyo mid aan dabiici ahayn ama waa natural iyo sidoo kale mid non natural ama artificial family planning ah. noocyada kala duwan ee family planning naturalka iyo artificialka labadaba waynu kala tilmaami doonaa. waxaynu casharkeena xiga kusoo bilaabi doonaa insha Allah oo inoo joogtay benefit of family planning. benefitka ama faa'iidooyinka uu leeyahay family planning inagoo qaybi doonaa dhowr midna hooyada siin doona, midna siin doona maxaa ilmaha yar, midna siin doona social and economic ka bilaabayna hadii la ka dhigo faa'iidada. markaynu eegno waxa la yiraahdo social and economic benefitka ama faa'iidada markaynu eegno waxaan odhanaynaa family planning reduces health risk to women and gives them more control over their reproductive lives. markaynu ka hadlayno faa'iidada ama waxa loo yaqaano social and economic benefitka waxaan family planning waxa uu reduce karaya ama uu dhibaa health riskiga ama khatarta caafimaad ee hooyada and gives them sidoo kale wuxuu siiyaa more control over their reproductive lives inay inta nolosheeda ilaaliso taranteeda ama inta u baahanta dhali karto. sida awgeed waxa halka ku jirta wax weeyaan khatarta caafimaad ee hooyada ayuu hoos u dhigaa family planning. families with the fewer children are over able to send those children to school. waxaan odhanaynaa familieska ama qoysaska leh caruurta yar haysta familieska haysta caruurta yar are often able to send waxa awoodaan inay caruurtooda u diraan to school u diraan so girls get a chance to attain higher education. sidoo kale habluhuna waxay chance u helaan inay galaan waxbarashada sare. anas outcome natiijada ka soo bixi karta halka ama outcome ka imanaya macnaha hablihii waxbarashada sare gelayay outcome-keeda wuxuu noqonayaa the age of their first marriage is often later inay guurkoodii dib u dhaco and their years of fertility reduce sidoo kalena tarantooda ay yaraato. marka macnaha meesha ku jira waxa weeyaan haddii habluhu ay waxbarashada sare galaan ama secondary jaamacada wixii la mid ah waxaa dib u dhacaya guurkii oo macnaha guurkoodii baa daahaya. marriage is often later guurkoodii baa daahaya and their years of fertility reduce sidoo kalena tarantoodina way yaraanaysaa. macnuhu waxay gabadha haddii weynaan ku guursato caruur badan ma dhalayso. waa sida macnuhu. marka waxaanu ku soo ururinaynaa social and economic benefit ama faa'iidada bulsho iyo dhaqaale waxay noqonaysaa inay hooyada uu riskiga khatarta caafimaad ee ku iman karto hooyada inuu yareeyo sidoo kalena ay awood siiyaan inay tarantooda xakameyn karaan. waxaanu sheegnay sidoo kale familiga ama qoysaska leh caruurta yar waxay awoodaan inay caruurtooda u diraan iskuulada sidoo kalena hablahoodu inay chance ama fursad u helaan inay galaan oo ay iska xaadiriyaan waxbarashada sare. taasoo natiijada noqon karta hablihii waxbarashada dugsiga sare ee jaamacadaha galay in guurkoodii uu dib u dhaco sidoo kalena ay marka ay guursadaan caruur yar dhali karaan. okay sawir ba halka inooga muuqda. sawirka halka inooga muuqda wuxuu tusinayaa waa hooyo aabe iyo laba caruur ah. sidoo kale qoraalka meesha ka muuqda wuxuu leeyahay we have two happy and healthy children based on our income level our family speak enough. waxa marka halka inooga muuqata in leeyihiin waxaan aad baan u faraxsanahay sidoo kale caruurtuna way caafimaad qabaan waxaan ku salaynay income levelkeena ama wax haynteeda ayaan ku salaynay. qoyskeyguna waa qoys balaaran ama waa qoys weyn. sidoo kale enough macnuhu waxa looga jeedaa caruurta yari waxa ay ka caafimaad badan tahay caruurtii faraha badneyd. macnuhu maaha caafimaadkii caadiga ahaa waxaa loo jeedaa caruurtan yar daryeelkoodii uu fududaanaya. sida awgeed waxaan ahay qoys balaaran waxaan ku salaynay aad baan u faraxsanahay waxaan ku salaynay caruurtayada waxaan ku salaynay iyo caafimaadkooda family income-kayga. marka halkaas waxaan ka fahmi karnaa caruurta oo la yareeya faa'iidada caafimaad iyo dhaqaale ku jiri karta laakiin dhankeena markaan ka eegayno maya. health benefit to a mother waxaan laga eegi doonaa faa'iidada caafimaad ee ugu jirta hooyada.
benefit ka hadlayna weli. Contraceptive use reduces maternal mortality and improves women's health by preventing unwanted and high risk pregnancies and reducing the need for unsafe abortion. وفرصة contraceptives loo isticmaalo contraceptives inta badan isticmaalkooda ama waxyaabaha uurka laga hortagay isticmaalkoodu waxa uu reduce gareeyaa ama uu yareeyaa maternal mortality-ga dhimashada hooyada and improves women's health sidoo kale waxa uu xaqiijiyaa ama lagu xaqiijiyaa caafimaadka hooyada. sababtuna waa maxay? By preventing unwanted and high risk pregnancies. waxa uu family planning laga hortagaa oo uu yareeyaa unwanted and high risk pregnancies, uurka aan la doonayn iyo sidoo kale uurka khatarta leh. uurka khatarta leh waa maxay? And reducing the need for unsafe abortion. halkaas haddii isku taagno waxaan odhanaynaa preventing unwanted and high risk pregnancies. horta family planning waxa uu yareeyaa uurkii aan loo baahnayn, calashan xilligii aan la baahnayn oon loo baahnayn in uur la qaado family planning wuu dhimayaa. oo de uur hadaan loo baahnayn family planning baa isticmaalay waxay dhigantay. haddii se uurka iyadoon loo baahnayn haddana family planning aan la isticmaalayn uurkina uu yimaado, halkaas waxay noqonaysaa weliba ka leedahay and high risk pregnancies iyo sidoo kale uurarka khatarta keeni kara. uurka khatarta keeni kara waa maxay? waxaynu halkaa kusoo ururin karnaa tusaale ahaan yar oon odhanaynaa haddiiba hooyadu ay intay sanadkan ilma dhashay ama uurka ay qaaday lagu jeexay ama ay khatar caafimaad ku gashay oo dhiigkar iyo dhiig la-aan iyo waxyaabo la halmaala yeelatay, uurka xiga waa khatar. macnaheedu waxa weeye uurkii hore oo aanay kasoo kabanin hadday uur kale qaado khatar bay gelaysaa weeyaan. high risk pregnancies waa kuwa and reducing sidoo kale waxa uu dhimaa the need for unsafe abortion. uurka oo la iska ilaaliya, uurka aan la qorshaysan oo la iska ilaaliya waxa uu reduce gareeyaa ama uu yareeyaa baahida keeni karta in la sameeyo unsafe abortion ama ilma iska soo ridid aan ammaan ahayn, yacni aanu samaynin qof xirfadla ah. faa'iidada kale waa maxay uu leeyahay? haddii aanu yidhi contraceptive-ka ama waxyaabaha uurka laga hortagay waxay yaraan dhimashada hooyada, waxayna xaqiijiyeen caafimaadka hooyada, waxaana lagaga hortagaa uurka aan loo baahnayn iyo sidoo kale uurarka khatarta caafimaad hooyada gelin kara, iyo wuxuu dhimaa oo uu yareeyaayo kale baahida keeni karta in la sameeyo ilmo la soo rido oo aan ammaan ahayn. macnuhu waxa weeyaan halka hal tusaale naga filan haddii uu yimaado uur aan loo baahnayn, tusaale ahaan haddii uu yimaado uur ama illegal pregnancy haddii uu yimaado wuxuu u baahanayaa qofkii meel uu ceebta iskaga maydho, marka dal kasta uu isticmaali karo uu samaynayaa. laakiin inagu waxaan hadda ka hadlaynaa maaha ka. macnuhu waxa weeyaan haddii hooyada uu khatar gelinayo ilmahani oo la isku dayo soo rido dabcan oo dadna qofka soo ridaya noqon qof xirfadla ah unsafe abortion buu noqonayaa. faa'iidada kale waa maxay? avoiding too early and too late pregnancies. avoiding too early and too late pregnancies waxa family planning-ka lagaga hortagaa uurka degdega iyo midka habsanka. macnaha waxaa loo jeedaa too early and too late pregnancy. haddii tusaale ahaan gabadha ay xilli hore iyadoo yar guursato uur bay qaado waa too early. haddii iyadoo da-weyna guursatana waa maxay? iyadana waa too late pregnancies. tusaale ahaan family planning helps mother avoid pregnancy when they are vulnerable. family planning waxa uu haweenka hooyada haydhahda ka caawiyaa avoid pregnancy when they are vulnerable, inay uurka ka hortagaan oo iska ilaaliyaan markaa u nugul yihiin because of their youth or old age. halkaas ka soo baxday marka too early and too late pregnancy. xilli hore uur la qaadaa waxay keeni kartaa khatar caafimaad. sida oo kale macnaha waxaa loo jeedaa waxay u nugul yihiin waqtiga dhiigkarka iyo macaanka iyo foosho dheeraata iyo in ilma lagu jeexa iyo waxyaabaha noocaas bay u nugul yihiin marka haweenku yar yihiin. sidaas leeg marka ay da' weyn ku gaadhaan ama ay xilli 30 iyo wixii ka badan uur ku qaadaan 50 iyo wixii ka weyna khatartaasi way jirtaa. aan soo dul marno
waxaan odhanaynaa family planning waxa uu reduce garaya ama uu dhimaa khatar dhimashada hooyada sidoo kale waxa uu xaqiijiyaa caafimaadka hooyada isaga oo laga hortegayo unwanted and high risk pregnancies uurka aan loo baahnayn iyo sidoo kale ka khatarta keeni kara wuxuuna reduce garayaa baahida keeni karta in la sameeyo unsafe abortion sidoo kale faa'iidada kale waxa weyn avoiding too early and too late pregnancies in lagaga hortago la iskaga ilaaliyo uur xilli horaa ama xilli damba macnaheedu waxa weeyaan family planning helps mother family planning wuxuu hooyada ka caawiyaa avoid pregnancy when they are vulnerable inay uur qaadaan marka u nugul yihiin because of their youth or old age iyagoo da' yar ama da' weyn labadaba ah oo dib uga hadli doona marka waxyaabaha khatarta ay keeni kara ama dhibaatada uu keeni karo uurkaas faa'iidada kale waa maxay limiting the number of pregnancies family planning waxa uu yareeyaa tirada uurarka macnuhu waxa weeyaan tiradii uur la qaadi lahaa buu dhimaa once the desired number of children has been achieved marka tiradii la go-aansaday ama la rabe ee uura la gaadho caruura la gaadho macnuhu waxa weeyaan once desired number of children has been achieved tiradii la go-aansaday ee caruurta marka la gaadho ama la dhalo the woman can avoid further pregnancy hooyadu waxay isticmaali kartaa inay ama ay samayn kartaa inay ka hortagto inay qaado uur kale by using family planning methods iyadoo isticmaalaysa hababka family planning macnaheedu waxa weeyaan marka ayna limiting the number of pregnancies waxa weeyaan haddii qorshaha qoyskaasi uu ahaa inay 5 caruur dhalaan 5 caruur maalinta ay dhalaan si aan hooyadu uur kale u qaadin waxay isticmaalaysaa family planning methodskiisa ama noocyada kala duwan oo macnuhu waa maxay tiradii la go-aansaday ee caruur ahayd marka la dhalo haweeneydii waxay sameynaysaa inay avoiding further pregnancy inay ka hortagto uurkii by using family planning methods iyo isticmaalka habab kala duwan family planning faa'iidada kale waa maxay family planning ku leeyahay preventing abortion waxa uu ka hortagaa ama lagaga hortagi karaa abortionka inuu yimaado abortion sidee ay noqonaysaa marka most abortions result from unwanted pregnancy inta badan marka laga hadlayo ilmo la soo rido iyo ilmo la soo la aborti gareeyo waxyaabo noocaasi wuxuu bay noqotaa resultigiisa ama natiijadu waxay noqotaa mid ka timaada unwanted pregnancy uur aan loo baahnayn and the significant number of maternal death iyo sida oo kale khatar ama tira dumar u dhimata can be attributed to unsafe abortion induced by untrained practitioner waxyaabaha marka keeni kara waa maxay inuu marka qayb ka noqdo unsafe abortion inuu sameeyo ama uu induce gareeyo untrained practitioners dad aan xirfad lahayn marka haddii dad qof xirfad lahayn ilmaha uu soo rido ama abortionka uu sameeyo macnaheedu waxa weeyaan wuxuu haystaa oo leeyahay xirfad sida awgeed waa safe abortion baranayna marka laba faa'iidadii koowaad maxaan yiri waxa uu noqonayaa mid dhaqaale oo hooyadii in halka ka soo noqoto in sidoo kale lagu yareeyo urarka faraha badan in sidoo kale caruurta loo baahna markii la gaadho xilligii intii lagu talagalay marka la dhalo in hooyadu dhinto ama joojiso dhalmadii iyo sidoo kale abortion ka hortago benefit of children baranayna markan faa'iidada ugu jirta intaas hooyadii baa wanaag soo aragnay noocyada kala duwan faa'iidada ilmaha ugu jirta waa maxay family planning isaga together with the other health services si lamida sida adeeg bixinta caafimaadka kale such as diarrhea pneumonia management and nutritional program and the world expanded program on immunization family plan directly contributes to the improvement of children's health and growth aynu dul marna hadaba waxaan odhanaynaa together with the other si lamida ama si wada jira adeegyada kale caafimaadka sida diarrhea pneumonia ama oof-wareenta ee sida loo maareeyo oof-wareenka iyo sidoo kale nutrition programka barnaamijka nafaqo iyo fidinta talaalka barnaamijka nafaqo and the expanded program on immunization iyo sidoo kale barnaamijka fidinta caafimaadka family plan directly contribute waxa family plan si toos ah uga qayb qaataa baan odhanaynaa to improvement of children's health in xaqiijinta caafimaadka caruurta and growth iyo koritaanka macnuhu waxa weeyaan halkaas marka leenahay benefitka ama faa'iidada ilmaha ugu jirta waxaan ku fasiraynaa tusaale ahaan
markaan leenahay diarrhea, pneumonia, nutritional program, immunization programkii waxaasoo dhan ama talaalkii sidee caruurtii koobnayd qoyskii si fudud bay ula macaamili karaan inuu diarrhea ku dhaco ama shuban ku dhaco way yar tahay in sidoo kale pneumonia ku dhacdo way ku dhici karaan waxba laakiin macnuhu waxa weeye caruurtii yarayd ama tiradii caruurta ee yarayd waxay ka fudud yihiin in la xaliyo dhibaatada ku iman lahayd tira caruur badan macnuhu hooyadii dhashay 5 caruur tusaale ahaan iyo tii saddexda dhashay way kala caafimaad badan yihiin wayna kala activity badan yihiinoo waxaa laga yaabaa inta labada caruur gacanta qabsato in la tagto hospitaalka la tagto xanaanada la tagto xarumaha talaalka laakiin marka ay hooyadii sanad walba dhalayso tusaale ahaan ama ay 5 caruur haysato ee midna naas shaqeeyo midna xoolka jiifo midna uu sidan fahmi karno tirada caruurta inta leeg waxay noqon kartaa mid mashquulsan hooyada sida awgeed inay helaan caruurta talaal nafaqo iyo sidoo kale korin fiican waxay qayb ka noqotaa waa family planning sidaas markaa faa'iidadiisu noqonaysa counseling for family planning tala bixinta family planning ka inagayna waxaan u qaybaynaa inta badan 3 individual counseling iyo couple counseling iyo sidoo kale group information sharing baan odhanaynaa oo individual counseling waxa weeyaan waa tala bixintii qofka ahayd oo inay haweeneydii tala qaadato family planning ku saabsan inta xarun caafimaad tagto waa mid couple counseling kuna waxa weeyaan inay noqoto taladii qoyska oo aabihii hooyada wada socdo inay qaataan taladii ama xanaanaha tagaan ama hospitaal tagaan sidoo kale group information sharing iyaduna waxa weeyaan nooc kale oo kamid ah taladiyo tusaale ahaan hadii koox dumar ah oo ama qoysas inay noqoto 5 dumar ah 10 dumar ah 7 dumar ah 3 qoys afar qoys ama wax la mid ah marka ay suurtagal ahayn in individual la sameeyo ayaa la sameeyaa group information sharing ko tusaale ahaan xilliga xanaanada ay yimaadaan haweenku ama xarumaha caafimaadka waxay noqonaysaa in hal mar inta la soo wada fadhiiso deetana macluumaadkii la wada siiyo oo loo sheego laakiin labada kale oo ka duwan yihiin mar waa haweeneydii qura mar hadduu doono waa ninkii marna waa couple oo wax weyn waa qoyskii oo wada socda marka intaas ayaynu qaybinaynaa general principles of counseling baa jira hadaba mabaadiida guud ee uu leeyahay tala bixintu maxay noqonaysaa waa in la helo privacy muxuu baahan yahay find a quiet place to talk waa in qofka aad talada siinayso uu helo privacy meel asturan waa inuu helo sidoo kale quiet place to talk meel aad kula hadasho oo gaar waa in la helo take sufficient time waa in qofka uu helo waqti ku filan talada aad siinaysay maintain confidentiality sidoo kale waa qofka kalsoonida la dhisaa keep it simple waa inaad isticmaasho weero ama words people in your village will understand hadallo ay fahmi karaan dadka bulshada qodobka xigana waa maxay say it again waa inaad qofkii wixii aad tiri aad ugu celiso repeat the most important instruction again and again qofkii markaad sharaxaadii siinayso ee tala bixintii waa inaad ugu celiso ilaa inta uu ka fahmayo midda ugu dambaysa waa maxay use available waa inaad isticmaasho available visual aids like poster and flip chart and etc xilliga qofka wax tusayso aad talada aad siinaysana waa inaad isticmaasho visual aids ama waxyaabo muuqaal ah oo sida poster board flip chart iyo sidoo kale video another photo iyo waxyaabo kale aad heli karta ee muuqaal waa inaad isticmaasho iyo wixii la halmaala saasan etc aan dulmarno waxaan mabaadiida guud ama general principles of counseling waxa weeyaan waa in la helo privacy qofku asturnaan meel asturan waa inuu helo aad kula hadli karto waqti ku filan waa inaad siiso kalsoonida waa inaad dhisto sidoo kale waa inaad isticmaasho erayo fudud oo dadka bulshada ay fahmi karaan waxa lagaaga digayaa oo looga digayaa inaan isticmaalno wixii la oran jiray medical terminology oo aynu isticmaalo luqad qofka aanu fahmaynin laakiin waa inaan ku hadallo oo aynu isticmaalo luqad caadi oo la isla fahmi karo fudud say again marka leenahay waa repeat the most important instruction again and again xilliga marka qofka aad tala bixintay instruction ama tilmaamaha siinaysidna waxaad u baahan tahay inaad ugu celiso oo aad mar labaad ugu celiso ilaa intuu ka fahmayo use available visual aids like poster and flip charts waa inaad isticmaasho waxyaabo muuqaalaho sawiro iyo sidoo kale qoraal aad samaynaysid iyo boodhan iyo waxaas waa inaad isticmaasho oo aan isticmaalno establishing family planning counseling the gather approach hab la yidhaahdaa jira stebiska ama tallaabooyinka tala bixinta ee family planning waxay noqonayaan hab la yiraahdo gather macnaheedu waxa weeyaan waa G iyo A iyo T iyo H iyo E iyo R alashan waxa weeyaan 6 eray oo la soo gaabiyay oo meesha ku yaala weeyaan waxa la soo gaabiyay maaha eray la soo gaabiyay caadi laakiin waa 6 eray oo la soo keenay
when you counsel and you client your village about family planning marka aad la talinayso macaamiil cusub ama qof cusub oo xaafadaada ah you should follow step by step waa inaad raacdo tallaabooyinkan oo ah waxa loo yaqaano processkan ama step by step process gather waa maxay is an agronomy short form weeyaan short form ama la soo gaabiyay that will help you remember the 6 basic for family planning counseling taasoo ujeedadu tahay inaad 6 tallaabo asaasiga aad xasuusnaato ayaa lagugu soo gaabiyay ama la inoogu gaabiyay habka gather la yiraahdo marka waan si kala qaadi doonaa gather waa sidan marka family planning counseling the gather approach habka gather marka la isticmaalna ama gather waa maxay jeed waxay u taagan tahay waa great the client respectful inaad qofka u salaanto si qadarin leh eeduna ask them about their family planning needs inaad weydiiso dadka ku imanaya baahidooda family planning tiduna waa tell them about the different contraceptive options and methods inaad qofka u sheegto noocyada kala duwan ee family planning h-tuna waa maxay waa helping them to make decision about choice of method waa inaad ku caawiso inay gaadhaan go-aan arasha ay doortaan nooca ay doonayaan iduna waa maxay explain and demonstrate how to use methods waa inaad u sharaxdo oo u sheegto barto sida u isticmaalayaan habka ay doorteen arba ugu dambayso waa return ama river schedule and carry out return visit the follow up ina qofkii balan u qabato oo ah sida follow up ugu samayso ama la socdo is important to give a more emphasis to the points under each counseling step talaabo kasto tala bixinta marka ku jirta waa inaad xooga si gaar ah u saarto marka habkii gather maxaynu nidhi jid waa great eedu waa ask tidna waa tell h-tuna waa help iduna waa explain r-tuna waa return halkan ayaan kusoo koobaynaa insha allahu tacaala casharkeeni labaad waxaan idinka codsanayaa qof kastoo muuqaalkan soo gaaro inuu subscribe gareeyo channelka isla markaana wixii tala iyo tusaale ah sidii caadada inoo ahayd inaad noogu reebtaan qaybta commentiga anaguna ay idinka soo jawaabno insha allahu tacaala taladu waa noo muhiim aad iyo aad ba umahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي دنبه oo xiisa leh